aad ayaa u mahadsantiin waa ku faraxsanahay saakay madaxweynaha inuu dhagax dhigo dugsigii markii ugu horeysay la dhigi Regina Ellen laakiin haddana xaawataaka loo yaqaan dugsigan waa dugsi taariikhda Soomaalida khaasatan xilligii gumeysiga iyo kadib taariikh xoog leh ku leh waxa ka soo baxay dad badan oo muhiim ah oo dalkan taariikhdiisa dhinac uga jira tan waxay kamid tahay maxaan ku sheegaa madaxweynaha iyo dawladdan hadda balantay qaadeen in waxbarashada la soo celiyo talaabtii ugu horeysay waad ogtihiin madaxweynaha inuu sanadkan ka dhigtay waxbarashada slogan la doonayo in wadankan hadii la rabo in hore loo kaxeeyo oo dhaqaalihiisa kor loo qaado waa muhiim in waxbarashada ay noqoto dhaxaadkii dhaqaalahaas ka xeel lahaa saad maqlayseen waa waxbarashana mar haddii xirfad iyo aysan jirin waxaan kuu sheegaa skills oo dhalinyaradii oo wadankan dadka ugu badan ah aan la jiheynin wadankii dhaqaalihiisana aan la socodsiinin markaas macna ma keenayso marka wuxuu noqon doonaa dugsigan dugsi example ah kii ugu dambeeyay ma noqon doono qaar kalena way ka horeeyeen laakiin tani annaga aad inoo farax gelinaysa in ballantii madaxweynaha uu qaaday oo rabo in waxbarashada dalkan uu soo celiyo taasi aad ugu faraxsanahay madaxweyne waa mahadsan tahay waan ku faraxsanahay jeedaan maanta waxaan halkan aan dhagax dhigaynaa dugsiga loo oran jiray xaawataako oo aan doonayn in aan dib u dhisno dugsigan wuxuu noqon doonaa dugsi engineering iyo farsamo iyo noqon doonaa farsamo gacmeed runtii de waxaan ognahay aqoontu inay tahay horumarka umadeed inay tahay waliba bacdama dalka uu burbur dheer u soo maray oo aan doonayn dib inaan u dhisno waxaan u baahanahay farsamo inaan dhalinyaradeena carruurteena barno si dalkan uu noqdo dal isku filan oo wax walba uu awood u leeyahay inuu samaysto saas darteed waxa weeye waxaan doonaynaa inaan dhisno oo aan dib u dhisno dugsooyinkii farsamada